teeda kale isugu xudooni kiiska walaalkiinu joojawaan iyo cabsi geliyay aniga hore miyaad isku taqaanaan ii sheeg maya miyaanad rumaysanayn ooy agteeda maad iman kartaa ilaa adaa kula hadlay ooy maxaad ka rabtaa horta ii sheeg seedi miyaad ii yeedhay haa saqajaanka xuna fiidiga ku jira waxaa kugu yidhi jawaabiga sii anigu seedi hore ayaan kuugu sheegay walaala ay saaxiib ahaayeen wax kalena ma jiraan idhigiisa hooya adigu iminku inaad qolkaaga iska tagtaa hoostana ka soo xidho okay mideeda kale arrintan ooy maxaad ka soo dhexgelinaysaa inanay wada dhigtaan ooyo ayaa fiidiyogan duubay oo internetkana ku faafiyey baan ku idhi naayaahe ooyo wiilka ayay isleen markii adiga ku weyna aniga ay soo garaaceen baan ku idhi oo laakiin sidee aniga ayaa imika u tegay ooy ayaa wax walba soo weydiinaya sidee wuxuu jiray ii sheeg baan ku idhi markii u dambaysay ayaa wax ku weydiinaya ninkaa maxay ka dhexeeya ii sheeg iga qaad faraaga bal hortaa waxba kaa qalmin ii sheeg baan ku idhi naydika maxay ka dhexeeya ninkaa ii sheeg aniga ayaa kuu sheegayay stage isagu wuxuu ahaa saaxiibkay saaxiibkii ma faatay maka idhigeysa ninkayga runta haddaan kuu sheega ninkaa mar ama laba jeer uma kulmi jirnay maxaad hore igu sheegi weyday sheeg naa maxaad iga qarsay waa ku baryaa stage maxaad la qalqalaysa hartan way dhammaatay anaa xaliyey soo maaha haada aniga ayaa artaxaliyey maxaad meesha qabanaya sheeg yaah boqon xuna wasakha baa kuriyaaska riyad ka faa'iidaysanaya weliba walaashaa ku soo maray loorna uu ku qabaa doqonnimadooda arrintaa ayaad qarsatay soo maaha ii sheeg baan ku nayaahe haygu qaylin waa ku baryayaaye maanta laga bilaabo kiiska farahaad ka qaadaysaa oo sidee waa inaad xafiiska xeer ilaaliyaa tagto waad soo dacwotaa weliba maya arrintan anigu lagama yaaba inaan soo dacweeyo waayo isaga laba cisho maanu saragnaa arrinta maxaad wax waaweyn uga dhigaysaa adigu ii sheeg karamifaam waa ku barya dadkan waa dad khatara dad khatara waxaa ka baxnayaa ma maqashaa kiiskan waa inaad faraa ka qaata waa kunayaa haygu qaylin aniga iyo kala jooji baa ku intaa wax kabada kuma dulqaadanayo hawshaas halkiin la gaadhay ma aragtaa noloshaada miyaanad ka fikirin adigu ii sheeg maxaad kiiskan ugu adkaysanaysaa sababta kiiskan aad ugu dheggantahay muxuu yahay ii sheeg maskaxdaada ha shaqaysa siinay bay weliba go'aan qaado anigu maalintii ugu horraysan kula kulmay inayroo nadiifaad ahayd weliba qalbigeedu cad yahay oo weliba dhallinyaro ah haye madaxa sataa maalinta ii sheeg waa ka xumay baryahan dambe waxaa kugu dhacday kalsooni darro oo ay raggiyo dhan baad ka boodday marka anigu baryaha hore waxaan kuu sameeyey asxaan aad u weyn inaad iloodiya in kalema garanayo maxaad xusuusataa haye dee ii sheegdee soo xasuutid abaalkan kuu galay haye aniga hurdaay haysa ha igu sii raagin waxaad odhanaysa odho kadibna iska bax adeer nacaybkaad jihan u qabto waan ogahay anigu xaqna waad u leedahay maanta haddaad nacayb u qabi lahayn lugahaagaba kumaad istaagteen intaasoo sanana fursaddan oo kale waad sugaysay waad u soo daashay waad u samirtay weliba askariyad baad noqotay waxaad doonaysay jaaniskan oo kale inuu ku soo maro xaq baad u leedahay ninkii noloshaada baabiiyey inaad saa u soo hor istaagto waxaan ku yidhi aad isbarto waa sidee ma dhakhtar cilmi nafsi baad isku beddeshay maya la yara sheekaysan baan sididee markaad la sheekaysanaysid qof noloshaada hore garanaya runaantii aad bay u macaan tahay anigu ujeeddada hadalkaagoo dhan baan fahansanahay waxaad leedahay jiihaan sodog ayaanu ahay inantayda ayuu qabaa ka fogow haddii aad dabagasho wax fiican lama kulmaysid saw intaasun kama wadid hadalkaaga waad khaldan tahay haddaad moodaysa inaan u dalaaninayo jihaan waxaad doonto ku samee laakiinse inantayda sheekadaad jihaan ku waddo haddii in yaroo dhibaatay waxaan kudha ay soo gaadhsiiso anna markaa dee sheekada waan soo dhexgelaya waad iska og tahay maaha marka anugu intaasuma ka hadlaya markaas inantayda sheekada ha soo dhexgelinin wallaahi taasi aday kuu taallaa ku darso dee haddaad noloshaadii hore askarta u sheego dee wax kugu dhacay waad iska garanaysa soo maaha marka inantayradee barandaha ka soo dhacday xagga sare haddii aad sheekadeeda daba gashana anigu waxaan ku qasbanahay markaa inaad noloshaadii hore oo dhan ciidamada